anigoo og mas'uuliyadda la ii dhiibay inay ahayd dalka inaan ka gudbiyo doorashooyinkii la yaqaanay oo dadbanaa oo la soo maray 2016 oo aan u gudubno qof iyo cod in awoodda dalku ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ayna qayb ka noqdaan go'aanka dawladoodu ay gaarayso ayna ka qayb galaan doorashooyinka hadday tahay cod iyo hadday tahay in ay iyagu naftigooda noqdaan murashaxiin sidaas darteed inaan dad kooban loo koobin ama gaar looga dhigin siyaasadda ay noqoto wax daahfuran oo ummadda Soomaaliyeed kulligood ay ka qayb gali karaan laakiin nasiib darro waxaa la magacaabay guddi iyo baarlamaanku magacaabay guddigaasna runtii shaqo badan buu qabtay wuxuuna la yimid nooc kale oo la yiraahdo majoritarian la yiraahdo oo ka duwan kii hore anigu runtii raali kama ahayn waan ogaa inuu dib la imaan karo laakiin waa idin tanaasulkaygu ugu horreeyey horta meeshaasuu ka bilowday waxaan sameeyey tanaasul kale oo markii ay go'aan ku qaateen inay ku shiraan shirkooda ugu horreeyay ay ku qabsadaan dhuusamareeb halkaas ay ugu casumeen iyagoo iga diiday halkan inay yimaadaan yaan waxaan aqbalay inaan samareeb ugu tago markay ay kulmeen samareeb 1 samareeb 2 waa nimid waa ka hadalnay wax badan yaan meel isla dhignay waxaan ku ballanay inaan samareeb 3 aan ka dhiganno kulankeena aan go'aanka ku gaarayno kadib markii aan baarlamaanka la soo tashado waa idin la tashaday waxaad siiseen green light oo ah waxba u dhimi mayso shuruucdii aad ansixiseen bal waalahan kale waxay hayaan iyo waxaan la qaadan karno la soo xaajood waa kulannay samareeb 3 nasiib darro Puntland iyo Jubbaland ma imaanin waa ka baaqdeen Muqdisho yaan ku casumay waa doorashadii heshiiskii siyaasadeed maxaan ku waradaa September 17 September aan go'aanka ku qaadanay taasna waxay ahayd tanaasul kale oo aan gaaray oo qof iyo codna waa ka tagay tii dhuusamareebna waa ka tagay tan waa tii saddexaad marka haddaba 17 September heshiiskii ahaa laba arrimood yaan damcay inaan ku darsado oo ah guddiga doorashooyinku inuu noqdo guddigii doorashooyinka madax bannaanaa bacdamaa la geliyey dhaqaale fara badan iyo resource badan la geliyey khibrad badan ay leeyihiin in iyagu ay qabtaan hawsha waa iga diideen in dumarka lacagaha fiiga ah laga yareeyo iyagana waa iga diideen labadaasna waa iga diideen waa tanaasul kale iyada naftigeeda oo aan sameeyey